magaalada Hargeysa ee deegaanada maamulka Soomaaliland waxaa lagu xiray boqor buurmado oo kamid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulkaas kadib markii uu ka soo laabtay dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaana la sheegay in ciidamada inay kala baxeen hotelka Mansuur oo ku yaal magaalada Hargeysa. taliska booliiska maamulka Soomaaliland ayaa la faahfaahin waxa uu ka bixiyay sababta ka dambaysa xariga boqor buurmado oo kamid ah odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka Soomaaliland. afayeenka booliiska Soomaaliland Faisal Xiis oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in boqor buurmado loo haysto eed ku aadan waxyaabo uu ku sheegay inuu ahaa qaran dumis markaan cadeen u hayaan dhawaanna ay maxkamad horkeeni doonaan. boqor Cusmaan maxamed oo loo yaqaan boqor Cusmaan buurmado kaasi oo lagu eedeeyo inuu galay dambi qaran dumis ah isagoo Puntland kaga dhawaaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah isagoo faafiyay warar been ah oo aan saleerato lahayn. booliisku markuu falka galay waxay bilaabeen baadhis aad iyo aad u qoto dheer leh way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifo sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaana loo soo jaray waxaan la yiraahdaa warrant of arrest ama mandaat dikaturo ayaa loo soo jaray wuu xiran yahay wuxuu ku eedeysan yahay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagoo iskiis isaga ayaa u tagay Puntland ayaa Puntland u tagay cid u fasaxday iyo cid oo galaatay midna ma jirto falkaas qaran dumiskaana halkaa uu tagay buu kaga dhawaaqay waanu xiran yahay waxaana loo hayaa marag muujin ku filan inuu dambiga galay halkan waxaan uga digaynaa waxa weeye dambiga isaga kaligiis baa galay mas'uuliyadda ciqaabtu waa shakhsi wuu xiran yahay waxaana si degdeg loo gudbin doonaa xeelaalinta iyo maxkamadda awoodooda wuuna mutaysan doonaa haddii la ka dhigo dambiga uu galay ciqaabtiisa saddexaad xeerka ciqaabtu wuxuu ka hadlaa waxa laga leeyahay boqor buurmado ayaa maalmo ka hor waxaa magaalada Carmo ee gobolka Bari uu qayb galay xafladda caleemasaarka Beeldaajo Maxamed Beeldaajo oo kamid ah odayaasha dhaqanka maamulka Puntland waxaana Soomaaliland ay ku eedeynaysaa in khudbad halkaas uu ka jeediyay uu meel uga dhacay sharafta Soomaaliland sidii hadalku u dhigeen. xarigan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli weli xabsiga magaalada Hargeysa ay ku xiran yihiin Naciimo Abwaan Qorane oo markaasi timid magaalada Muqdisho isla markaana ay ku eedeeyeen sidoo kale in ay qarnimada maamulka Soomaaliland meel uga dhacday. sidoo kale waxaa xabsiga Hargeysa ku jira Maxamed Keese Bigaase oo xilli hore markaasi buu ka qoray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax qabadkiisa kaas oo markaas uu magac daray buugaas ugu magac daray. sidoo kale tan waxaa jirtay in markaasi Maxamed Keese Bigaase oo sidoo kale dhawaan sheegay ama bartiisa Facebook uu ku qoray in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu yahay local taas oo keentay in markaasi xabsiga la dhigo. waxaana Naciimo Abwaan Qorane dhawaan sidoo kale maxkamadda magaalada Hargeysa ee ku xukuntay xabsi gaaraya 3 sano.